السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسن سيلي هي الحمد لله أنا وفي عنا واحد بواحد يرينا إذا لو ذاقو gabar baa waxay tiri waxay ka sheekaysay isbedelka iyo routiinka ku dhacay nolosheeda. Yani nolosheedu waagi hore say ahayd suujkeeda siduu ugu fiicnaa, siduu ugu jajabnaa, siduu ugu naxariisan jiray iyo waagii dambe nolosha siday noqotay. Marka waxay ku leedahay saasuu ahaa, saasuu noqday, saasuu wanaagsanaa, saasuu xumaaday, baari buu ahaa, hadda ma garanaysaa uu isbedelay. Markaas waxay ku leedahay waa ogaa nin Soomaaliyeed inuu saa noqonayo. daa'iman nolosha ka dhacaysa hareeraheena ama meesha ku nool nahay yani inaad ku qiimaysid noloshaada khaaska ah ma ahan. Waa laga yaabaa qofku inuu mujtamaciisa la dabeecad noqon karo, la dhaqan noqon karo, waxyaabo common oo laga siman yahay ay jiri karaan. laakiin waxa u baahannahay wax yar inaan fikirka maaragtay noocaas ah isku dayno inaan cala alaqal bal wax ka bedeli karno. masalan marka adiga gabar tahay oo markii lagu soo guursado aan niyadda ku haysid nin Soomaaliyeed berri wuxuu igu noqonayaa nin adag, nin Soomaaliyeed berri wuxuu igu noqonayaa nin aan naxariis lahayn, nin Soomaaliyeed maanta marka la sheekaysanaya maybe inuu i wadwado jecel yahay, hadiyad ii keeno kaxaynayo, laakiin berri markaan reer noqono isu dhawaano hal qof isku noqono wuu isku kay bedelayaa because maxaa dhacay mujtamacaasa u nool, because waa nin Soomaaliyeed, because awowgiis iyo adeerkiis iyo aabihiis iyo kulligood saas u wada noolaayeen. Okay, miyaanan maxay tahay ninkana hadduu ku dhaqmayo ma wajadna aabaa'una oo maaragtay wuxuu aabihiis ka soo gaaray, aabihiis oo aan guriga ka adeegayn oo maaragtay xaaska caawinin hadduu arko isagana sidii ku soconayo, hadduu arko maaragtay aabihiis oo aan hooyadiis kaxkaxaynaynin ama la dalxiisaynin, ama miyaanu isagana maaragtay uu quruurkiisa hoos uga soo degi karin oo caadooyinkiisa ka tanaasuli karin si noloshiisa u qurux badnaato, oo isku dayi karin adduunku waa isbedelay, waa la isdhexgalay, aniga waxbaan bartay, maxaa samayn karaa? waxbarashada markaan leeyahay ma ahan ina maaragtay ma ahan inaan leeyahay yani inaad waddan kala tagtid oo wax ka soo naqlisid oo maaragtay aad ku dabaqdid. yani waxa wanaagsan alxikmatu daalatu lmu'min, xikmaddu waxay ka dhuntay qofka mu'minka meesha rabtid ka qaado. haddii aad tid nin waddan kale u dhashay oo xaaskii si fiican ula dhaqmaya oo si fiican ula tacaamulaya, adigana waad ku fikradda waad soo naqlin kartaa oo waad ku base garayn kartaa noloshaada because of wax wanaagsan oo qurux badan. teeda kale diinteena inaan barano waa muhiim jiddan. waxaan xasuustaa maalin baa waxaan akhrinayay I think waa facebooka soo dhigay, wuxuu ahaa qoraal yar oo ka hadlaya nabiga calayhi salaatu wassalaam caaisho iyo maaragtay xaasiskiisa, yani wuxuu kula qubaysan jiray inaa waaxid, yani masalan way wada qubaysan jireen. maalinkii dambe haddana waxaan soo dhigay nabiga calayhi salaatu wassalaam yani caaisha wuu la baratamay, wuu la ordaya. wiil baa wuxuu yidhi meel ka wada shaqayn jirnay, wuxuu dhahay nolosha romansiyadeedu show inaga timid buu yidhi islaam ahaan. marka qofka hadduuna maaragtay diintiisa akhrin oo si fiican u garan, wuxuu yidhi waxaasoo dhan waxaa u malaynaya qarbiga iyo maaragtay dadkan maaragtay gaalada oo kale marka arko iyaga wada orordaya, iyaga maaragtay filimaanta oo kale, waxaa u malaynayay buu yidhi noloshaas quruxda badan oo dhanba inay iyaga xaggooda naga jirto. umaan malaynayn buu dhahay inay maaragtay saas inaga diinteenna yani saas u yani way qurux badan tahay, ma ka shakisana isaga, laakiin in ay maaragtay waxyaabahaas ku jiraan oo waxyaaba markii loo arko yani laga xishoonayo. marka nabigeena calayhi salaatu wassalaam ayaana baraya sida u noolaan lahayn, nolosheena saa u quruxsan lahayn, wixii nolosheena maaragtay gelinaya khalkhal aan iska tuuri lahayn, wixii wanaagsan oo qurux badan oo nolosheena qurxinayana aan usoo gelin lahayn. marka inaan waxa u baahanahay haddana hoos u fiirino bal tacaamulka ka dhexeeya labada qof ee isqaba, nabiga calayhi salaatu wassalaam iyo maaragtay axaadiista quruxda badan iyo maaragtay waxa diinteena macaan ay ka tiri. haddii kale diinteena marti baa u noqonaynaa, kadibna waxaan isku dayaynaa inaan meel kale aan ka raadsano nolol kale qurux badan.
xaqiiqdana kama helayno diinteena macaan nolosha inoo samaysay nolol ka qurux badan meelna kama helayno so marka waxaa loo baahan yahay gabadhana inay ka saarto fikirkeeda ninkaygu waa nin Soomaaliyeed oo bari wuxuu igu noqonayaa nin Soomaaliyeed ama sida aabahay oo kale ama sida aabihiis oo kale waxa loo baahan yahay in caqligaaga maaragtay isticmaashid adigu maadaama tahay hadaa tahay gabar wax akhriday hadaa tahay gabar maaragtay wax daraasiisay hadaa tahay gabar og nolosheeda si ku quruxsan karto ha ka sugin isaga inuu bilaabo adiga bilow wiilkana sidoo kale haduu dareemayo in noloshiisa wax ka dhiman yahay yuuna ka sugin in iyada bilowdo isaga ha bilaabo sababtoo ah nolosha inaan wada qurxisano ka nin ahaan iyo ka gabar ahaanba dan baa noogu wada jirta nolol qurux badan bay noqonaysaa nolol farxad badan bay noqonaysaa nolol waxay noqonaysaa annaga iyo ilmaheena iyo maaragtay mujtamaceena dhanba aan ku noolaan karno nolol qurux badan sidoo kaleeto ilmahaaga berri saa u nooshahay way saameynaysaa haddaa tahay hooyo maaragtay wanaagsan oo maaragtay gurigeeda qurux badan yahay oo nolosheeda qurux badan tahay oo wax kasta easy u aragtaa oo mashaakilka si hoose u xallisaa oo buuq guri aan lahayn oo aabahana sidoo kale sidaas oo kale baa wiilkana siduu aabaha u dhaqmo ayuu ula dhaqmayaa maaragtay berri markuu guursado gabadhana sida aabaheed sida hooyadeed aabaheed ula dhaqanto oo guriga uga dhaqanto ayay ula dhaqmi doontaa marka waxaa loo baahan yahay anagoo nolosheena quruxsanayna haddana inaan ogaano inaan dad kale tababarayno oo maaragtay nolosheena ay hadhow ay ku sameyn doonaan maaragtay waxay anaga naga arkaan ay naqlin doonaan oo guryahooda ay maaragtay ay ku sameyn doonaan Soomaalidu waxay dhahdaa gabadhu waxay gurigeeda kala tagtay gurigeeda yani guriga aabaheed waxay kala tagtay gurigeeda la tagtaa sidoo kale wiilkuna dhaqanka uu kala tago guriga aabihiis uu ka arkay ayuu ula tagayaa gurigiisa marka waxa u baahanahay ragana inay soo degaan haddii ay aaminsan yihiin nolosha inay adeega ku soconayso dumarkana waxa u baahanahay inay iyagana ay maaragtay iyagana kor u baxaan oo dhahaan maya aniga nolosheeda waa quruxsan karaa ma ahan sida gabadha deriska u noolaatay inaan u noolaan karo oo maaragtay yani ma aha khasab sidoo kaleeto khasab maaha sida aabahay hooyada u noolaadeen noloshooda haddii qurux badnaydna waan ka qaadanaya wax qurux badan haddii ay buuq lahaydna waan ka tegayaa wixii maaragtay buuq iyo ii keenaya dhibaato marka noloshaada qurxiso adiga ay ku jirtaa gacantaada wax kastana ogow waa easy adduunkana waa maalmo kooban waa ina farxad ku noolaatid waa ina maaragtay cafis samaysid oo maaragtay qofka kula nool iyo dadka dhanba qofkii ka khaldama cafisid si aa ugu noolaatid niyad saafiyo oo qurux badan xaqiiqatan nolosha way qurux badan tahay laakiin haddii aad ka malaysid nolosha inay adag tahay way kugu adkaanaysaa haddii aan nolol qurux badan oo wanaagsan oo macaanta sawratidna ilaahi subxaana watacaala xadiisul qudsi wuxuu ku lahaa ana yani ilaahi subxana watacaala wuxuu lahaa waxaan ahay addoonkayga danigiisa addoonkaygu hayga daniya wuxuu doono marka ilaahi haddaa waxa wanaagsan ka danidid oo dhahdid ilaahi subxana watacaala qofka la noolaanaya wuu ii wanaajinayaa ilaahi subxana watacaala insha allah nolol wanaagsan baa ku noolaanaya ilaahayna wuu kuu sakhirayaa waddadaa ku gaari lahayd nolosha wanaagsan oo quruxda badan maalin wanaagsan oo qurux badan baa idin rajeynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu